banaanbaxa loogu soo horjeeda gefka madaxweynaha dalka Faransiiska Macron oo u geystay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo dhanka kalena lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Banaanbaxani oo ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee magaalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland. Sidoo kalena banaanbaxa ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulaadka ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo iskaga kala yimaada xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Banaanbaxani ayaa intuu socday ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo sheegay inay aad ugu xun yihiin gefka uu geystay madaxweynaha dalka Faransiiska Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay. Munaasabada inta ay socotay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo sheegayna inay aad ugu xun yihiin gefka uu geystay madaxweynaha dalka Faransiiska Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. ugu dambeyntiina culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa baaq u diray ganacsatada Soomaaliyeed in ay joojiyaan badeecadaha kala duwan ee laga keenay wadanka Faransiiska si loo cuna qabateeyo wadanka Faransiiska isla markaana sina la tuso xuduuda ay leeyihiin muslimiinta maadaama Faransiiska uu yahay mid aan xilligan xiriir ah lala yeelan karin wadamada Islaamka oo dhan. quruxda badan leh anagoo ku codsanayna dawladda federaalka Soomaaliya waxaan baan halka uga direynaa in ay safaaradda Faransiiska ay si degdeg ah dalka uga saarto 24 saac gudahood in dalka laga ceyrsho sidii waxyaalaha easy ah oo fudud ayaa waxa loo ceyrshay safiirkii qaramada midoobay si ogsoonahay asagoo wax dambi ah aan diinta Islaamka ka galin ninkan kale waxaan codsanaynaa in safaaradda dawladda Faransa in dalka laga ceyrsho Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay gaalka caayay waxaan leenahay nacalad Ilaahay ha ku dhacdo Ilaahay caradiisa ha ku rido diinta Islaamku nuur bay leedahay wax qayir mahaya ma aha afgaal ku qayir mayso balse annaga ayaa waxaan la ka rabaa qiirada hadaan u soo baxnay oo kaleeto inaan diinta ugu soo baxno ayaa la rabaa marka dadweynaha reer Gaalkacyo aad baan marka labaad iyo marka saddexaad ba idin mahad celinayaa gaaladana wixii Nawaal Macron afka uu qabo kaleeto qaba ama Nabi Maxamed caaya ama aan qalbiga ka jeclayn Ilaahay caradiisa ha ku rido ayaan leenahay maanta muslimiinta halkaan isugu yimid oo u soo banaanbaxay dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay gubeen oo ay dab ku tuureen calankii Faransiiska nacaladna dusha kaga rideen ganacsatada Soomaaliyeedna waxay goosteen xabad xanjaha inaan laga keenin Faransiiska oo ganacsatada Soomaaliyeed aysan keenin waa nacaladayna waxaan leenahay uga baxayaa hambaliyo ummadda rasuulka oo nabigooda jecel oo sunniyiinta ah fayasubullaha adwan bighayri ilm ha caayinina kuwa Ilaahay qeyrkiisa ay caawudayaan oo sanamyada iyo waxyaabaha xunxunka ah oo cadaawad intay idin qaadaan cadaawadii ay Ilaahay ku dhacaan jahli dartiisa muslimiintu ha xasuusnaadaan markaan dareenkeena muujinayno inaan si nabadgelyo ku muujino dadka diimahooda iyo waxyaabaha ay aaminsan aan la caayin. After that, I am very sorry the president of France since he was against of our Islam. As we all of us we are Islam or we are not taking for his violence for our against for our religion. As we know there are many religion in this world but the religion of Islam is the only religion that we can say is the true in this Muslim in this world. We can say we of us as we are Muslim and we can't tolerate the president of violence and we can say fall down everyone who is against mudug gaar ahaan caasimada Gaalkacyo bulshadii weeye meesha waxa isku nimid nabiga calayhi salaatu wasalaam difaaciisa inaan nabiga waxaan fadayno inaan difaacno inaan ka dhiidhino caayada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan la qaybsano bulshada muslimiinta ah sida nabiga ay u difaaceen say u muujiyeen qiirada nabiga calayhi salaatu wasalaam saxin ma balan ba darkii gaalada oo asaga waxa weeye meeshaan hadda waxa ku qorani waa darkay keeni jireen weeye waa fanaanadahoodii ha dawladeena waa dawlad muslim ah waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam